بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa Commissionka Xuquuqul Insaanka Qaranka iyo ka soo qaybgalayaasha kulankan ay maanta isugu nimid loogu talagalay in lagaga hadlo marka human rights stakeholders oo dhan ay isugu yimaadaan laga hadlo xeerka naafada waxyaabaha aan doonayo marka inaan tilmaamo waxa kamid ah kulli kulankani waa kulan aad iyo aad u qiimo badan oo la isugu yimaado quarterly dabadeedna lagaga hadlo waxyaabaha xuquuqul insaanka taabanaya waxaan inta badan ogsoonahay kulamada noocan oo kala ah inay kor u qaadaan isku xidhnaanshaha iyo networkingka waxyaabaha kale kor u qaadaan ee muhiimka waxa kamid ah inaynu inta badan wixii xog aynu ku wadaagno ee ku saabsan xuquuqul insaanka iyo halka uu marayo caqabadaha haysta iyo sidoo kale success stories ama waxyaabaha laga guul gaaray inta badan ururada ku hawlan ay sameeyeen horumar ah waxyaabaha muhiimka ah waxa kamid ah oo iyada lafteedu xusid mudan in kulanada noocan oo kale ay soo dedejiyaan marka wixii xog iyo reports ah in la kala qaato oo la wadaago la isla eego findingska maxay noqdeen marka anagu ka soo jahan maanta inaan kulanka noocan oo kale ka qayb galno micno weyn bay noo sameynaysaa runtii inaan ogaano marka daneeyaasha kale xuquuqda aadanaha ka shaqeeya bal heerkay marayaan iyo xogay hayaan iyo caqabadaha haysta iyo waxa soo dhan inaan wax ka ogaano aad bay muhiim u tahay waxyaabaha kale muhiimka waxa kamid ah in anagu maadaama anaga lafteedu ka shaqeyno human rights protectionka waliba gaar ahaan dhinaca mediaha iyo media advocacy-ga waxyaabahan doonayna inaan wax badan ka ogaano waxa kamid ah xeerka naafada oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan maanta halkan laga hadlayo ama lagu faaqidi doono inta badan waa la soconay xeerkan meelaha uu marayo iyo jaranjarooyinka iyo caqabadaha haysta waana runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in la dhameystiro markay xeer ahaan noqoto sababtoo ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxay la kulmaan inta badan caqabado badan oo dhinacyo kala duwan ah hadday noqoto dhinaca helista adeegyo ku filan goobaha codbixinta oo kale markay ka qayb galayaan iyo caqabadaha haysta goobaha waxbarashada iyo caqabadaha la kulma marka aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta guddiga xuquuqul insaanka iyo SNDF oo iskaashanaya inay kulankan ay qabtaan dabadeedna lagu gorfeeyo bal xeerkii sidii loo dhaqaajin lahaa halkii markii hore uu taagnaa meel aan hayn loo gaarsiin lahaa isla markaana dhaqangal ugu noqon lahaa waan bogaadinayaa stakeholderska ka soo qayb galay iyo waqtiga fiican ay siiyeen laakiin waxaan jeclaan lahaa inaynu halkaa ka sii amba qaadno sii dardar gelino xoogga aynu saarno oo aynu noqono markaas urur walba dhinaciisa uu ka galo stakeholder walba awoodda uu iskugu geeyo sidii disability actiga loo meel marin lahaa ama loogu bushgarayn lahaa marka institutionska iyo hay-adaha u qaabilsan xeerarkan inay dhaqaajiyaan inay nagala shaqeeyaan marka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa in xubno baarlamaanka Soomaaliland ka socday inay joogaan kulanka waxa kaloon ku faraxsanahay inay Sonsof gudoomiyaheedu joogo iyo ururo kale xuquuqul insaanka heer caalami iyo kuwa lokalaba marka aad iyo aad baan anagu soo jahan ugu faraxsanahay inaan kulanka ka qayb galno wixii anaga dhinacayna iga aadanna inaanu xoog saarno inaanu meel marna hadii alla yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantahay Thank you, sir. aad iyo aad ugu mahadsan yahay agaasimuhu waxaan kusoo dhaweyn doonaa inoogu xigi doona gudoomiyaha dalada Sonsof Anwar بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف